maansada dhimirka marka waan iska guda galayaa erayadeeda wixii arkaadan gadaal ka sharaxda doona insha Allah wuxuu yiri maansada waxay tiri dhagaxan awdbow wax maqal afkaygow eraya dhiib bulshada nabad ugu dhawaaq dhacdada dheehoo dhagee miskiinka dhankiisa dhow kan dhaadan dhambaal u dhiib rabbaa ina wada dhigo jidhkeennaa wada dhashee miyaad nici kii la dhigay haddaad yeestid ka warran adoo labis qurux badan wadato qof duruufaysan ee dhib u geystay inuu duruufoobo usasagu seedin aad yeestidoo tirahay ka warran musudeedoo kale noqo aniguba waan ahay alla kama dhigin hadda sidaas ogow rabbaa ina wada dhigo jidhkeennaa wada dhashee miyaad nici kii la dhibay haddii dhimirkiya caqligu maskaxdu kugu dhowran tahay haddii dhimirkiya caqligu maskaxdu kugu dhowran tahay haddaad dheeftaad cuntiyo dhigaal kuu kaytan yahay ogow midaan dhaashan baa jimbiga dhinacaaga yahay midaan waxbaba haysan oo noolayn oon waxba haysan baa kula deriska qofka kula deriska waa ninaan waxba haysan uma sugayo baahi buu kula joogaa meeshaas haddana adigu ulama ogi ogow mid la dhalan rago dharkiisii xoorayo subxaanku ka dhigay sidaas ayaa weli kaa dhigsuga kan waalan aduu kaa sugaya inaad daryeesho inaad caafimaad geysid hadduusan xataa caafimaadin qofkaan ogow adiga uu kaa fiican yahay oo muxuu kaaga fiican yahay caqligiisii soo alla ma qaadin ilaahay isaguna wuxuu ka qaaday kafaaradii saaray intaa uu waa la wuxuu dambi suubinaya inaan lagula xisaabtamo maanta qiyaama bal fiiri wuu kaa darajo badan yahay adoo soo cibaadaysanaysid baa laga yaabaa dambi yar oo kaa dhacay inaad cadaab u mudato asaguna intaasoo dambiga uu suubinayo miyirkiisu maqnaa wuu kaaga hela wuu ilaahay dartiis loo baa la cafi maadaama ilaahay subxana wa tacala maskaxdiisii ka qaaday dhimirkiisii wuxuu ugu bedelay amaalgud kaleeto inuusan dambi dushiisa ka dhigay iyo kafaaro ayaa weli kaa dhursuga mid bay baahidu dhigto dariiqyada isaga dhaca ehay dhuuxoo bal eeg dhallaankii aadan iyo xawaa ina wada dhashee hamoodin wixii dhaca inaan eebba dheexanin ogow qofkaan fadiiladaasuu leeyahay hadduu maadaama fadligaas uu leeyahay adna fadligaas ku ixtiraam ilaahay uu siiyey waa darajo ilaahay siiye qofkee ku ilaali ilaa adigu baa la mid baa tahay ma hantin caqliga maadan hantin maalka maadan hantin xoogga marka ku ilaali sidaas kula eeg inaan wuxuu yidhi hamoodin wixii dhacaa inaan eebba dheehanayn maxaa hanad kula dhigaha dabayshu ku dhabanduleed maxaa ruux kuu dhowaa dhaadadka geed loogu xiray maxaa geesi dhiirana dalkeennu ku dhaadan jiray lixaadkiyo dheexa mida dhafoorkii hoos u dhaca fiiri markaad fiiri sidaad muuqaalada fiiristay waxaad maqlaysaa askartii 7 military ku jirtay oo aadimadoodii waayay fiiri qarankii dhan bay aadimadoodii waayay baa haddana daryeel la'aan dadka ugu liitay daryeel la'aan buu dadka ugu liitaa markaasaanan weliba aanan ogeyn inuu qofkaas dhiban yahay annagu ma ogin in qof dhiban yahay hadda maxaad qabtaa dii lugaa waan fiicanay baad wax weligaa dhiban maaragtay maya dad bal fiiri qof noocaasa baa kula dhashay oo adiga ku sugahay marka wuxuu yidhi bukaanka waa soo gabagabaynahay mansuur maadaama loogu talagalay barnaamijkii oo iska dhawaa oo iska gaabnaa allaan kugu dhaariyee bukaanka dheef soo dhawee bukaanka dheef soo baldhigo dhakhtarka geeyoo dhawee kashiisa ka dhowr xumaa oraahda sidii dhadhaab ha ugu dhihin dhaawacdee ka daa dhayalsiga aadmiga ka dhigo saaxiibka dhabtaa ka dhigo qofka markuu yahay qof walaalkaa ee mudnaantaas kaa leh ilaali inuu walaalkaa yahay ogow oo mar walba la noolo qofka xaaladda uu kula nool yahay hadduu waalan yahay kula noolo xaaladdaas la dareen jirkaagu ha la dareemo haddaadan xataa hiil u tari karin jirkaagu ha la dareemo marka maansada sidaana kusoo gaabinaya maadaama riwaayada ugu talagalay riwaayadiina ay maa umalan trainingeed inuu jiro saasaan idiin rajaynayaa